waxaa maalintii shalay ahayd magaalada Hargeysa lagu xidhay wariye Najiib Cabdiweli Cabdi Xiis oo ka tirsan wariyeyaasha telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa kadib safar uu kaga soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana lagu xidhay madaarka magaalada Hargeysa ee Cigaal International Airport kadib markii uu ka soo digay diyaaradii siday Maxamed Caabid Digaale agaasimaha telefishinka Universal ee Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay xariga wariye Najiib Cabdiweli Cabdi Xiis iyo sababta ka dambeysay xarigiisa waxaa maalintii Khamiista ahayd lagu xidhay madaarka magaalada Hargeysa Najiib Cabdiweli Cabdi Xiis oo ka tirsan shaqaalaha ka shaqeeya xarunta magaalada Hargeysa Universal TV oo in muddo ugu maqnaa magaalada Muqdisho shaqo xarigaas wuxuu daaran yahay sida aad ogtihiin waxa Soomaaliland ka soo baxay sharci oranaya in qof kasta oo ka soo dega madaarka magaalada Hargeysa uu soo baasaboor ama Soomaaliland ha ahaado meel kale ka yimaado sidaas awgeed markuu yimid magaalada Hargeysa Najiib Cabdiweli Cabdi Xiis muu sidan baasaboor waxa ma baasaboora taas ay keentay in la qabto la xidho ilaa maanta aan ka hawlgalay mataqaan in la soo daayo waqti xaadirkan wali wuxuu ku jira xabsiga lama soo deyn markaan la hadlay mas'uuliyiinta sare waxaan ugu yiri kulli ujeedada loo haysto waxa weeye ma garanaysaa wax ku yimid bala baasaboor wax kale loo haysto ma jirto in waxaan ku rajaynaynaa insha Allah balday inay nafdooda la soo daayo ayaan rashka qabnaa runtii waana ka xunahay mataqaan dhibaatada mataqaan ku dhacday walaalkeen Najiib Cabdiweli Cabdi Xiis oo runtii magaalada Hargeysa xaaskiisa u degan yihiin caruus joogto oo xaqna u leeyahay inuu yimaado mataqaan meesha awal badagana kana shaqeynayay muxuu caruus joogto laakiin sharciyadan imka la adkeeyay dhawaan soo baxay ayaa waxay keenayaan ma garanaysaa in dadka qaar kood runtii ay dhibaato kulmaan waxaan lahaa dadka imanaya inay runtii iska hubsadaan markay imanayaan muxuu ahaa Soomaaliland si aan loo kulmin dhibaatooyinka loo kulmay walaalkeen muxuu ahaa Najiib Cabdiweli Cabdi Xiis وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفزيون عالمي Universal Hargeysa